fashil iyo fadeexo ayay ka xambaaratay finaalka Europa League kooxda Arsenal oo ileen waaba been iyo bug in Arsenal ay tahay boqorada baaska ee cariga Ingiriiska wax waliba waxa cadaysay caawa kooxda Chelsea oo ku tirtirtay cooska istaadiyaha Baku Olympic ee caasimadda Azerbaijan oo isla markii uu ka dhawaajiyay seeriga koobaad garsoore Gianluca Rocchi ayaa la wada yaqiinsaday in uu galbaday banoonigii wacnaa ee kooxda Arsenal kadib macallimkoodii hore ee Arsene Wenger min bilow ilaa iyo dabayaaqadka ciyaartana geesiga ifinayay Baku Olympic waxa uu ahaa laacibka reer Belgium ee Eden Hazard oo halkaasi ku soo bandhigay kubad wadatay maad iyo madadaalo ma xumayn Pedro waxaana ka sii cajiibsanay isfahamkii ka dhaxeeyay Madaale N'Golo Kante iyo xidiga reer Italy ee Jorginho oo lagu daray Matteo Kovacic iyaga ayaana ka dhigay koox sidii xaabadiyo kala ah xidigihii uu ku tashanayay macallin Unai Emery nasiinada qaybta koobaad waxaa lagu kala tagay labada kooxood oo ku heshiyay barbardhac gool la'aan ah laakiin marka la isku soo laabtay qaybtii labaad laba xidig oo ka tirsan kooxda Arsenal oo meel isku sheegta 15 daqiiqo gudahood ayaana lagu xanjiriyay kooxda Arsenal 3 gool iyo waxba goolka koobaad waxa uu ahaa mid ugu shubay laacibkoodii hore ee Oliver Giroud oo madax la helay cross uu soo saaray wiilka reer Brazil ee Emerson daqiiqadii 49aad naxdin iyo cabsi ayaa u bilaabatay jamaahiirta Gunners oo afkoodii ayaaba juuqda gabay goolka labaad wuxuu ahaa banooni uu si qurux badan ugu xariiftamay Eden Hazard waxaana uu lugta u geliyay Pedro oo halkaasi ka dhaliyay gool la tacajabay daqiiqadii 60aad ee ciyaarta marka iyo wixii ka dambeeyay reer Arsenal dhafoorya qabsi ayaa ka soo haray oo mar kale waxa diilinta 18 goolka lagu dhax jilaafay Oliver Giroud rigore ayaana lagu abaalmariyay kooxda Chelsea waxaana si degan oo la jeclaysto gool ugu badalay mar kale Eden Hazard xidigahu Arsenal marka iyo wixii ka dambeeyayna waxa ay bilaabeen in dib boorka ay isaga jafaan dadaalkooda ma xumayn oo waxa gool iqaa'ib lahayd u dhaliyay laacibkooda Awupi oo darbo la yaab lahayd ka toogtay banaanka 18 goolka oo gool haya kiba indha ka soo haray laakiin dadaalkii ay muujinayeen xidigaha kooxda Gunners waxaaba hal bacaad lagu lisay ka dhigay Eden Hazard oo mar kale ka faa'iideystay banooni uu shaqadiisa lahaa Oliver Giroud isagu ayaana soo qatimay goolkii kooxda Arsenal kooxda Chelsea ayaana sidaas ku xaqiijisatay ku guuleysiga koobkeedii labaad ee Europa League